wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska Soomaaliland ayaa degmada Celifin gobolka Sanaag maanta ku qabatay shirka wada tashiga xabkaha iyo faleenka. Shirkaasi oo laga arrinsanayay caqabadaha hortaagan ka ganacsiga xabkaha iyo faleenka. Madashan iyo goob joog ahaayeen maamulka degmada Celifin gobolka Sanaag, ganacsato waayeel xildhibaano waxgarad waxana ugu horreyn ba halkaasi ka hadlay agaasimo waaxidka waaxda xabkaha iyo faleenka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska Dhuux Cabdilaahi. la sheegay annagu waxaanu ka soconaa wasaaradii ganacsiga iyo dalxiiska sektorkii ama waaxdii xabkaha iyo faleenka xabkaha iyo faleenku runtii taariikh aad iyo aad u dheer bay leeyihiin ka Soomaaliland ahaan muddadii xabkaheena la helay waa muddo 2000 oo sanadood ama ka badan ama ku dhowba ee adduunyadu baratay inuu xabkaha iyo faleen leenahay sektorkan xabkaha iyo faleenka iminka waxaan joogay muddo mala sanad iyo bara sanadkii barkii waa markii labaad ee aan idin maado macal asaf waan ka xumahay markii hore Celifin kumaan hakan ismana aynan arag mana aan fahansanayn in Celifin ay tahay hooyada beeyada waayo mar walba waxba ku kordhiya safarkayga waxaan ku ogaaday beeyada Soomaaliland hooyadeed inay tahay Celifin waxaan u baahanahay oo runtii aan idinka baahanahay in aad nagu caawisaan oo aad nagu kaalmaysaan sidii xog rasmi ah looga heli lahaa xabkaha Soomaaliland uma baahnin xabkaha noocooda iyo say u baxaan iyo qorshahooda iyo meeshay ka baxaan iyo geedkay ka baxaan inta waanu ka dhigsanoo buug baanu ka haysanaa aanu ka qornay iyo kuwa cid inaga horeysa ka qortayba laakiin maanta halka ay marayso waa meel xasaasi ah beeyadu suuqeyn bay lahayd macaamil bay lahayd ilaalin bay lahayd khayraadka ilaahay inagu manaystay haddaynu reer Soomaaliland nahay haddaanay kow ka ahayn laba ay ka tahay malaa kow xoolaa nool baa inoo ahaa xoolihii noolaa maanta dee halkay marayaan isweydiin mayno intaa yara dhirta ee buurta ku taalbaa inagu hadhay waxna inaguma beeranno haddaynu nahay goboladan bariga beeraha shaqo kuma leeyahay inagu oo maba naqaanba taa ilaahay inoo beeray ee ilaahayna sidii aynu ilaalin lahayna iminka way laalaadaa waxay u laalaadaa geedkii waa la jaray geedkii waa la qolofriday geedkii waa la kala xaday geedkii caleentiisa baa la tumay waxa uu iminka marayaa marxalad uu ku jiro dabargo hadduu dabargo ayana cid ay ka dabargo aysaa waa inaga ka Soomaaliland bay inaga dabargo aysaa waxa loo baahan yahay geedka hareeraha in la iska taago oo deel ay ilaashado sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xildhibaano ganacsato waayeel waxgarad iyagoo ka sheekeeyay muhiimadda ay u lahayd beeyadu dadka deegaanadaasi waxa jirtay lacagayo horumarina oo la siiyo dadyowga beeyada ka ganacsada ee localka ah installment waa hafta la siin jiro loo oran jiray lacagta ku soo shaqeeya meesha way ka maqantaa kii beeyada ilaalinayay ee gurayay budgetkii wuu ka maqan yahay dawladda lafteeda ilaa meel wax lagu kala faa'iidayo ganacsi ka socdaaba dani ugu jirtaa idinna waa ku qatantiin beeyadii annaguna waa ku qatannahay laakiin mulkiilihii iyadoo shirkado fara badan agaasima aad sheegtay annaga shirkadda ugu badan ee inta badan iman jirtay wax iibsanaysay asli may dibay markaan ka hadlo xabkaha waa dhaqaalaha koobaad ee Soomaaliland xabku xoolihii waxbaa helay ama waa xanuunsadeen ama abaar baa heshay iyana waxba ma helin dayac baa helay dayactir baa u baahanta in la ilaaliyo caleenteeda iyo asalkeeda iyo xididkeeda loona qaybiyo ciidan adag oo ilaaliya ganacsi beeyana waa nahay in fara badan oo dhex galay marka ugu horeysa ganacsatada beeyada baash beeyada degmada Celifin wada leena kulli ragga anu jaacayo baan shalay baan ka cashuuray intaan hulul ilaas marka soo iibsado dhaqaalaha ugu badan kal hore ana ay kala afraan halka ka jiray wasaaradda deegaanka ka cashuuray jiray Cabdi Saciid iyo marka aan dhamaydlaya sharayo ee berbera ka doofinayo waxaan ka cashuuri jiray qoladan deegaanka dhaqaalaha ugu badan baa soo gali jiray horta waxa ogaataan dhaqaalaha ugu badan inuu soo galiyo haddaynu baash ka shaqeyno degmada Celifin hadda waxaan leenahay haddaad naga rabto beeyada way taagantay beeyadii waadna ku maadsanteen xaqiiqada naga qaado qodobkan laga hadlayo beeyada odaga agaasimaha ka warbixiyo wuxuu hooyada waxaan ogaaday hooyadu inay Celifin tahay waa run hooyadii Celifin meesha ganacsiga ugu firoon bay ahayd ariga iyo beeyaday ku ahayd arigii waa abaaraha naga jiiray beeyadiina ilaa hadda wax laga jiiray garan mayno
ganacsigii sidaasuu nooga xidhan yahay balbeeyadii baanu haddeer baadi doonaynaa ilayada abaari ma heline wixii naga xidhay baanu baadi doonu nahay sidaa cumar ka dhawaajiyey maalin dhawood waxaan maray buuraleyda run ahaantii dadkan dhankan xiga waddanka markay xoolihii ka dhammaadeen dhuxusha iyo waxaas shitaan qoladii buuro ay saarsaaran yihiin dhuxul iyo waxaan soo arkay markaasaan war waa waxay waxanay markaasay yidhahdeen dee markii beeyada cidiibsa wada dhuxusha loo dareeray markaagaasi waxaan leenahay beeyade waxaa dadkan degmada Celif weyn xoolaha iyo beeyadaas ku noolaay gabagabadina waxa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Celif Maxamed Aadan Digaale xogayaha fulinta dawladda hoose Cabdicasiis Salebaan Ismaaciil kulli gobolka Sanaag waa gobol khayraad badan leh haday xoolaha nool tahay iyo haday xabka iyo falanka ay tahay mid ka ganacsanaya iyo mid madaxa iyo mid hantiga sheeganayo geedka xabka iyo falanka leh ay tahayba horto ganacsigaas waa ganacsi aan u baahnayn shoobare waxaan u baahanyahay in la wada alaaliyo oo baalaha laga wada agtaagnaado runtii agaasimaha iyo tiimkiisa waxaynu uga mahad celinaynaa sida faahfaahsan ee qotada dheer leh ee waadixa ah ee aynu ugu faahfaahiyeen inaan qorshaha joojinta xabkaha iyo fareenka wax ka jira aanay jirinin waxay kaloo runtii ayna la galeen shir wada tashiya oo muhiim u ah oo odayaashii iyo waayeelkii iyo ganacsatadii beeyada lahaa ay aad ugu faahfaahiyeen in ay runtii u baahan yihiin inay u helaan ganacsi iyo suuq beeyadoodii inay taasna ay jirto waxa halka ka muuqata runtii inaynu isla jaan qaadsannahay ka shacab ahaan iyo ka xukuumad ahaanba oo aanay jirinin wax caqabada oo hadda ku xeeran in beeyada ganacsigeedii u socdo waxse loo baahan yahay inaynu wasaaradana aynu uga fadhinaa aynu ka codsanaynaa inay suuqeeda raadiyaan inaguna waxa inagu waajiba inaynu ciddii inoo timaadee inaga ganacsanaysa aynu gacmo furan ku soo dhaweyno